Audio Jungle. gudbaya waxaan uga goleenahay galayrada xulka gobteena Puntland kadiya xirfadoodu waa gaaro ciyaartana kayiga laga waaye gudbaya waxaan uga goleenahay galayrada xulka gobteena Puntland kadiya xirfadoodu waa gaaro ciyaartana kayiga laga waaye شوت كويس ما يباس دفاع جورا ويركنا جلا إيران دحى بالي جس كل دليل شباق جس مارين برتان قبل كيف أنا أذق كوبدي كاكوت بين قرنبا معلن قرشيو قراد وعن قدومي كل إدسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال فيوس تي في
oo garoonka muqdisho stadium dhexdiisa ayaanu idinkaga soo gudbinaynaa barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay diyaargarowga xulka kubadda cagta Puntland ay markaasi u sameynayaan ciyaarta soo aadan ama ciyaartooda ugu horeysa ay la yeelan doonaan xulka Jubbaland ciyaar ka dhici doonta stadium muqdisho haddaba waxaa ila jooga geesay oo ah golahayaha Puntland oo aan bal wax ka weydiin doono arrimaha ku saabsan ciyaarta soo aadan iyo diyaargarowga horta ku soo dhawo VOS ugu horreyn horta waa idin salaamaya VOS magacayga saddexan waa Cabdullaahi Cali Shiine geesay oo ku magac dheerahay waxaana ka mid ahay ciyaartooyda xulka kubadda cagta Puntland positionkeygana waa goalkeeper waan ku dhawahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaan anoo kala qaadqaadayn waan salaamaya gaar ahaan waxaan salaamaya oo dareer Puntland meel kasta dunida daafeeda ka joogaan ciyaartiina ugu horeysay waxaad la leedihiin xulka Jubbaland diyaargarowgiina ka war warun geemkeena ugu horeysa maalinta Arbacada ee fooda nagu soo haysa insha Allah taala haduu Ilaahay anagoo badqaban nagu gaarsiiyo insha Allah taala sorry waxaan la ciyaaraynaa xulka kubadda cagta Jubbaland oo dhigeena ah runtii diyaargarowgeena waxaa kaaga muuqan kartaa inaan u carbiyeysannahay aan isku niyad iyo isku qalbi iyo hal hadaf aan wada leenahay dhammaanteen hal doon baan wada saarannahay ummadda reer Puntland 5 milyan ilaa 4 milyan lagu qiyaasayana sharaftoodan habawanahay qadartaadu waa meesheeda qadartaadu waa meesheeda laakiin insha Allah taala anaga waxna laga baahan yahay xaq ciyaartoy ahaan inaan dadaal ciyaar qurux badan iyo isku duubni iyo kartinimo iyo dadaal iyo dhiig reer Puntland ahaan inaan la nimaan insha Allah taala walaalahayga Jubbaland ayaga ruuxooda way diyaar garoobeen insha Allah taala laakiin gari lamanin kama wada qoslisa la yiri garoonkaas insha Allah taala wuxuu Ilaahay naga siiyo baan kala kulmeynaa laakiin insha Allah taala waxaan ku rajaynayaa insha Allah taala inaan guuleysto horay Puntland iyo Jubbaland waxay soo arkeen finalkii koobkii maamul goboleedyada hore u dhacay marka maxaad isleedahay ciyaartii u dambeysay aad wada ciyaarteen oo aad ka kororsateen oo aad ciyaartan la soo bixi doontaan horta wixii tagay tigsimaad ma lahan waxa la yiri caanadaatay dabadeed la qabay marka wixii tagay way tageen waxa si anagu hadda niyadeedu kuma jirto oo walowdii hadaan isleeyahay insha Allah taala hadafka iyo yoolka aan leenahay insha Allah taala aan abaarino Jubbaland koobka stadium intuu socday laba jeer baan wada kulanay marna koobkan ka qaadnay marna ayaga naga qaaday marka badiyaab waa bahdeen insha Allah taala kii badiyaa labadeena uu ku fara waxaan waa iska kubadii saddex gala laakiin Jubbaland iyo Puntland markasta inay wada ciyaaraan calafka la weeyaan laakiin anoo ku kalsoon macallimiintayda xulka kubadda cagta Puntland iyo maamulka iyo waliba ciyaartooyda ciisada iyo sharafta iyo karaamada mudan oo waliba sharafta Puntland hawaan insha Allah taala waxaan ka rajaynayaa oo anigu waan ka mid ahay insha Allah taala waxaan rajaynayaa anagoo faraxsan garoonka inaan wada galnayo anagoo saddex dhibcood wadanayna Jubbaland aan insha Allah taala ka guuleysana geesay golahayaha tahay Puntland marka garoonkana waad mar dhex martay oo waad aragtay marka bal ka war dareenkaaga Konis Stadium ama Engineer Yariso Stadium naxariista Jannah iyo gudoomiye hore ee gobolka Banaadir ahana ee duqa caasimadda Muqdisho Konis waa garoon horu naqaan weeyaan labadii sano ee la soo dhaafayna aan ku soo ciyaarnay anigu geesay ahaana marar badan aan ku ciyaaray tartamo badan aan kaga qayb galay marka wax shakiya kama qabo garoonka aad arkaysaan baaxad weyn ee Allah weyn geed lagu gambariyo geed lagu gambada iyo derbi la qabsada labadaba ma lahan marka nasiibkeena insha Allah taala aan arkayna biidillah waa maasanta kaas wuxuu ahaa golahayaha Puntland geesay oo markaas ka hadlayay arrimo ku saabsan ciyaarta soo aadan ee Jubbaland iyo diyaar garowga ku aadan ciyaaraha dowlad goboleedyada ka furmay magaalada Muqdisho daawadayaal wali waan ku gudbi joognaa garoonka Muqdisho Stadium oo aan markaas idinkaga soo gudbinayno tababarka iyo iskuuleynta xulka kubadda cagta Puntland
annagoo idin ballan qaadnay inta ciyaaruhu ay socdaan in xulalka oo dhan aanu booqan doono. hadda waxaa ila jooga xogayaha guud xiriirka kubadda cagta Puntland Mustafa Cabdiraxmaan Mijacse ayaa ila jooga. dhowr su'aalood baan waxaan ka weydiin doonaa diyaargarowgooda iyo sida isku dabaridku yahay iyo ciyaarta u horeysa waxa Puntland ay filan karto iyo si guud xulashada ciyaartooyda ayaan ka wareysan doonaa. marka ugu horeysa ku soo dhaw telefishinka VOS waan ku faraxsanahay inaad ka wareysano Mustafa Mijacse oo ah nin muddo dheer sportiga Puntland iyo kan Soomaaliya ka dhex muuqday inaad hadda maantay aan ka wareysano arrimo ku saabsan ciyaaraha gobolada ama ciyaaraha dowlad goboleedyada Soomaaliyeed ee ka socda magaalada Muqdisho. bal waxaad marka hore bixin naga siisaa xulka kubadda cagta Puntland iyo xulashadiisa ugu horeysay qaabka ku soo xusheen. waa mahadsan tahay VOS fursadana ku soo booqateen garoonka Muqdisho xulka kubadda cagta Puntland oo ku sugan tababarkii ugu horeeyay waxaan ku furanay garoonka Injineeriso Allahu naxariiste kii labaadna waxaan ku tababar ku sameynay jaamacadaha saakan waxaan joognaa oo taariikhdu tahay 22 bishii 2020 garoonka Muqdisho Stadium. xaqiiqdii farxad u minootay inaan maanta garoonka Muqdisho oo dib u habeen casri lagu sameeyay ay tababar ku sameeyeen xulka kubadda cagta Puntland. marka aan u soo laabto xulashada ciyaartooygan xiriirka kubadda cagta Puntland wuxuu magacaabay macalinka xulka kubadda cagta Puntland iyo ku-xigeenkiisa. Puntland saa u socoto waa meel kubadda aad looga ciyaaro 9 gobol ka kooban. xaqiiqdii macalinka loo dhiibay oo ku wareeriyo ciyaartooyga la soo xulaayay maadaama ciyaartooyga tiradooda badan tahay. marka macallin Ibrahim iyo macallin Jabra ayaa xiriirka kubadda cagta magacaabeen. iyaga waxay soo gudbiyeen 22 ciyaartooy oo matalaya Puntland. markay soo gudbiyeen waxay soo gudbiyeen iyo taladooda intiiba waa qaadanay. waxaan filayaa in ciyaartooy xirfadooda aad u sareysay soo xuleen intii xiriisnaayeen oo tababar ku jireen galabyo subaxa iyadoo garoonka Mira Awaare oo dhawaan dib habeen ku sameynay ay tababar ku sameynayeen ayna u fududaanayso ku ciyaarista garoomada cagaarka maadaama tababarkooda garoon cagaar ku soo sameeyeen caasimadda Puntland ku yaal. taasi waxay fududaynaysaa inaan khibrad u leenahay tartanka dowlad goboleedyada. 2016 baan ka soo qayb galay xaqiiqdii koobkaas waa qaadnay 2017 baan nimi final baan nimi waan la ka qaaday. waxaan rajaynayaa markii saddexaad waaye waxaan filayaa ciyaartooygan wadno meeshii aan gaari jirnay email ka fiican inaan gaarno. waxaan filayaa inay xirfadooda aad u sareyso in waqti badan la soo geliyay dhiirigelin badan oo aan ugu mahadcelinayo madaxweynaha dowladda Puntland oo xulkan muddo 4 bil ku xareysnaa caasimadda Puntland ee Garowe. wax kasta oo u baahan yahay dhiirigelin ay siiyeen madaxweynuhu waa ku amaanan yahay sidoo garoomada dib liiskooda uga qayb qaatay. xulka kubadda cagtana u soo dhiirigeliyay maalintii ugu dambeysay oo soo baxayeenna shirka golaha wasiirada isagoo fadhiyo soo baxay soona sugooti. taasi waxay tusaysaa qiimaynta uu hayo dhalinyarada. marka madaxweynaha ku maasan tahay taariikhda Soomaaliyeed Puntland baal dahaba baa kaga jirta. sidoo kale wasiirka wasaaradda wasiir jaamac iyo agaasimaha tiimka wasaaradda dhammaantoodna u mahadcelinayna sida wanaagsan ay uga shaqeeyeen dhiirigelintan oo si dawladnimo maqaam sare ay ku soo baxeen ciyaartooydani. sidoo kale dhammaan xubnaha xiriirka kubadda cagta Puntland oo iyagu shaqadan technical u xukuma oo og baahida ciyaartooyga waxay tahay maadaama muddo badan ku soo dhex jirnay maanta waxaan filayaa wax ka maqani inaysan jirin olni waajibaadku iyagu saaran yahay oo laga sugayaa. waa la soo dhiirigeliyay tababar baa la soo siiyay maqaam sare lagu soo amba bixiyay. waxaan rajaynaynaa inay wax ka farxiya bulshada reer Puntland 40 milyan ay gaarsiiyaan. sidoo kale waxaan rabaa halka inaan ka xuso aan uga mahadceliyo maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa iyo tiimka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha sportka gobolka Banaadir sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen oo nagu martigeliyeen caasimadda dalka Muqdisho iyagoo nagu soo booqday hoteelka aan ka deganahay. sidoo kale imaatikayga waxaan u mahadcelinaynaa soo dhaweynta oo gudoomiyaha tartamada ana gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed Cabdullaahi Sheekh oo isagoo nagu soo dhaweeyay tiimkiisu garoonka Aadan Cadde garoonka diyaarada Aadan Cadde. waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo degmada aan deganahay Shibis gudoomiyaha degmada iyo odayaasheeda iyo dhammaan shacabka xaafadaas sida wanaagsan ay noola garab taagan yihiin taageerid iyo dhiirigelin iyo wada shaqeyn buuxda iyagana ugu mahadcelinaynaa. waxaan leenahay Shibis waa Puntland waa Shibis. waa mahadsantahay xogaye. aan ka baxaynin isla mawduuca dhinaca Puntland waxaa jira garoomadii Puntland hadda in dhismayaal ay ku socdaan oo
dhismayaal laga sameynayo qaybtood roogii qayb la goglay qayb isku tashi lagu goglay qayb sida ka gaalkacyo kale ka boosaaso ballanqaadyo la sameeyey xogayihii baa tahay marka arrimahaas dhaqaajintooda marar horena waa jirtay maxaa hortaagan bay kula tahay dadka hadda isku tashiga ka sameeyey gaalkacyo oo kalena ka xogaya ahaan sideed idinku maxaad kaga qayb qaadateen maxaad ku darteen maxaa idin qorshaysan waa mahadsan tahay dadka garoomada kubadda cagta Puntland muddo 2 sano hadda shaqadu soo socotay garoonka kubadda cagta Miraawar oo fiskiisii ka wada dhameynay waxaan sameynay guddi dubidhiska ama qareemada garoomada kubadda cagta xaqiiqdii guddiga ugu horeysay wax laga dhawaaqay gaalkacyo kii labaadna wax laga dhawaaqay Garowe guddiga dhammaan maadaama kubadda cagta xukunno guddi kasta waa la shaqeynay laakiin xubin waxaan ka ahaa guddiga Miraawar oo aan xubin ka ahaa waxaan filayaa dhaqaalaha lagu dhisay inuu yahay mid ka yimid dawladda Puntland iyo mid ka yimid dadka shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa Garowe iyo sidoo kale mid ka yimid xilligii ra'iisul wasaare Khayr joogay inuu soo gaarsiiyay dhaqaalaha qayb ka mid ah taasina ay tahay wuxuu xuquuqan ku leenahay oo noo soo fududeeyay horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed taasina waa ku amaanaya marka garoonka gaalkacyo isagana guddigiisu aad bay u shaqeeyeen garoon dhameystiran bay dhiseen oo garoon dawlad isticmaal waa garoon tribunkiisu ay kuraas yihiin showgiisa hadda ku socda dhammaantoodna ma garanaysaa waxay soo gabagabeeyeen bishan inta ka hartay uu dhamaanaya saan qorsheynayno ilaa bisha January 10keeda waxaan jeclahay haddaan laabano Facebook waa garoon kubadda cagta Miraawar inaan furno annagoo qorsheynayna in reebka waxa la sameeyay heerkooda Puntland in ciyaari gobolada la abaabulo iyo in ciyaaraha ay joogto noqdaan maadaama 2 sano gaab nagu jiray oo garoomada ay shaqo ku socotay marka Puntland waxay diyaar u tahay inay garoomadeeda ay hagaajisato dhalinyaradeedana goobo qurux badan u sameeyso ciyaar haddii garoomo qurux badan la helo ciyaartoy wanaagsan baa soo baxaya insha Allah waa hagaag ugu dambeyntii waa ogtahay ciyaarihii dowlad goboleedyada ee dhawaanahan ba ka soconayay ama ka dhacayay sanadihii u dambeeyay magaalada Muqdisho oo sidoo kale ciyaar la mid ah hadda aad u timaadeen xulka Jubbaland final baad 2 goor isugu timaadeen mar waa ka qaaday mar inaga ka qaaday ciyaarta horeysana ka xogayaan say aragtaa Jubbaland baa leedahay أنا حقيقي دولة قبلية دول كمنادر قلم ذو كليان إسأركن لبدي جيران كسر قريب قال لي نقوم عصلا أو حياته وح مركي كوع عسوبيين ركب قضاء مركان واحد رجينا إنه وحي نصيبه يعلف وماشي هذا لكن أول عيارات أو تيار أوصل رئيسه نقول كوكيني كرو إني أنا وضعنا عيارتي كذا aad buu mahadsan yahay Mustafa Mijacse gudoomiyaha ama xogayaha guud ee ciyaaraha Puntland xiriirka kubadda cagta Puntland Mustafa Mijacse oo uu warramiyay gaarka ah in wali ku guda jirnaa hadda waxa ila jooga agaasimaha wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo isboortiga oo ah waliba nin dhalinyaraha oo isboortiga aad ugu dhex jira arinta isboortiga Puntland aad u jecel tagaar horta ku soo dhawaansho waa mahadsan tahay waa dhawahay ma sha Allah soo dhawaad hagaag kulli Muqdisho lagu soo dhaweeyay Muqdisho waa tahay waqti dheer Muqdisho waa ku koray waxbaan ku bartay iskool hoose dhaxan Briman ka bilaaway ilaa Form 4 jaamacadan ka dhameeyay Barooniyan ka ciyaaray waa ku dhuxligay waa ku dhaxnoolaa Bariisamaadkii Muqdisho si fiican waa hagaag taas oo soo dhaweyntii xulka Puntland ayaad hadda la socotay agaasimihii wasaaradana waa tahay bal ka waran سيد واركتا مركز saddexaad inaad uga soo qayb gashaan ciyaaraha gobolada ama ciyaaraha maamul goboleedyada Soomaaliyeed magaalada Muqdisho aad baa maadsantahay saxafiye wallahi farxad bay noo tahay in anagoo matalayna Puntland inaan markii saddexaad nimaadno halkan labadii jeer hore marna final baanu nimi oo kaalinta labaad baan galnay marna waa qaadnay haddana ma sha Allah waa ku faraxsanahay inaan markii saddexaad nimaadno
diyaargarow fiican oo xiriirka kubadda cagta Puntland iyo macalinka iyo ciyaartooyga iyo dad isku wada duuban baan nahay anaga wasaarad ahaan siyaasadda guud baan hagnaa wixii siyaasadda guuda xiriirka kubadda cagta oo Maxamed Cali Ciise Ciiro uu madaxda u yahay iyo xogaye Mustafa iyo ragga la socda ayaa waxa technical iyaga ay u madax bannaan yihiin anagana wixii siyaasadda iyo maaragtay baanu ka caawinaa marka ciyaartooygu waa diyaarsan yahay muddaanu hadda diyaarinaynay ciyaartooygana waxay ka yimaadeen geesaha Puntland maaragtay qabiil iyo reer iyo jeclays iyo midna laguma keenin nin walbana maaragtay aqoontiisa xirfadiisa ku yimi waxaan rajaynaynaa insha Allah inaanu guul kala noqono koobka qaadno ilaahay idankiis inkastoo barnaamijku iska nasiib yahay dad badan oo fiican ay la tartamayaan oo dawlad goboleedyada kale laftarkoodu waa qiimeynayna ixtiraamna waa u haynaa laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah markaan eegno awoodda kooxda iyo diyaar garowga insha Allah in aanu maaragtay gool fiican oo lagu farxo kala noqon agaasimihi wasaaradda tahay arrimahan waa sax oo waxa ka hadli kara waa maamulka xiriirka kubadda cagta iyo ragga kale qaabilsan tababarayaasha ahaadaan marka waxaynu u gudbaynaa arrimaha wasaaradda bal ka waran garoomo isku tashi ah iyo kuwa bulshadu ay markaas iyagu ma garanaysaa kaashanaya maamulka iyo dawladda ay dhisaya ayaa Puntland ka socda kii gaalkacya hadda gabagaba marahaya kii Garowe waa la soconaa marka waxaad moodaa hadda in wasaaraddu shaqada shaqaalaha ay ka duwan tahay shaqadeeda sidii hore oo aad moodo dadaal badan sida dawladda cusub u timid bal ka waran hadda xagee wax maraya aad baan ugu faraxsanahay in isbedel fiican oo Puntland ka muuqdo iyadoo weli meeshii la rabay aan la joogin haddana waxaan wasaaradda iyo dawladda oo iyadu isku duuban iyo bulshada waxa loo guntaday horumarinta sportiga garoonkii Cawaale waa gabagabo ku jira garoonkii muxuu ahaa Mirawaare waa isagana wax yar baa ka harsan oo fayskii labaad baa loo gudbayaa garoonka Qardho sidaas oo kale hawshiisii gudiga waa la magacaabay Boosaaso sidaas oo kale baran baa hadda iyadana ku xigta Sanaag oo iyadana hawsheeda aan ku jirno iyadana aan rabno inaan qorshe iyo nidaam u sameeyno marka meel fiican buu maraya sportsku maaragtay maalin kaliya wax lama dhiso laakiin waxaan rajaynaynaa waqti dhow in wax badan isbedeli doonaan bulshada oo soo jeesatay sportiga maaragtay kooxihii Serie A xiriirku hadda gacanta ku hayaan ciyaarihii 9 gobol ee Puntland baa la rabaa in la qabto garoomada yar yar oo roog ah oo ganacsatadu leedahay ayaanu dhiirigelinay inay ku bataan Puntland oo aan cashuur laga qaadin oo lagu xujeyn waxba lagu xujeyn oo si dhalinyaradu ay soo baxaan oo sportigu u hormaro marka meel fiican bay maraysaa waxaan rajaynaynaa hadda marka la noqdo in xiriirka kubadda cagta Puntland uu qorsheeyo ciyaarihii Serie A ciyaarihii gobolada dugsiyadii jaamacadihii jadwal la noqdaan marka aad iyo aad bay hadda xaaladdu u fiican tahay wasaaradana waa dadaalaynaa madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni imaatinkiisa wax badan uu ka bedelay rajada dhalinyarada marka loo eego dhinaca sportiga dhinaca dhalinyarada dhinaca wacyigelinta marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan helnay madaxweyne u heelan baahida dhalinyarada taasina waxay dhiirigelinaysaa in waxyaabihii aanu maaragtay la rafan jirnay oo mar meel kala dhici jiray inay si fudud ay u hirgalaan marka guul waaye Puntland waa isku duuban tahay meel fiican baa wax la marinaya dhalinyaradana waa diyaarsan yihiin insha Allah waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis in maaragtay guul lagu farxo wanaagsan inaanu kala noqon hadii ilaahay yiraahdo ugu dambeyntii ciyaarihii la soo dhaafay qeyro badan baa ka muuqatay oo marka finalka la tago marka sanadkan maxaa is leedahay waa wax badan hal ku dhig badan dad badan baa hal ku dhig ka dhigtay marka la fiiriyo dhinaca taageerada iyo maamulka iyo marka sanadkan maxaa is leedahay wallahi waa faraxsanahay saaxiibo fiican aan leeyahay oo xiriirkii iyo macallimiintii iyo dhalinyaradii iyo wixii aan ku dhex jira qiiradana iyaga keena because waxaad moodaa agaasimayaal badan inaan ka nasiib badnahay oo aan leeyahay dad jecel oo saaxiibaday ahoo muxuu ahaayay Mustafa iyo muxuu ahaay Xasan Barre iyo Geesaweyne Maxamed Cali Ciiro iyo Boorci iyo dhalinyaradii dhan dad isku duubanaanahay oo macallimiintii ciyaartooygii taas waxay keentay inaad iska qiirootid markaad aragtid
dad ku daba taagan oo maaragtay kula shaqaynaya oo maaragtay waxa ku gelaya kalsooni dheeraada marka aad baan ugu mahad celinayaa sanadkan insha Allah mar walba qiirada iyo dhiirigelinta waa inaad ku qasbanaatid dhalinyaradaada inaad meel iska jiifatid oo hoteelka deganeed aadan ka soo bixin oo aadan raacin oo xoogaa ima siinaya damiirkayga inaan meel walba u raaco iyagoo aan ogahay shaqadooda ay ku kalsoonahay shaqada ay ahayaan ku kalsoonahay uga dambeeyo haddana dhiirigelinta ay siiyeen iyo wanaagga waxay inaan daba socdo raaco la shaqeeyo canaanto wax isu sheegno shirno marka insha Allah midnimadaasi aan caanka ku tahay Puntland waxay keenaysaa guul insha Allah ilaahay idinkiisa rajaynaya hadii la yiraahdo agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada isboortiga Puntland mudane Axmed Tigaana ayuu kaasi ahaa waad mahadsan tahay soo dhaw Audio Jungle weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka gaarka ahaa inuu la qaadanaynay dhinaca tababarka iyo aanu idiin soo gudbinaynay sida tooska ah telefishinka VOS xaruntiisa Muqdisho stadium Muqdisho ayaan si toos ah kaga soo gudbinaynaa hadda waxaa ila jooga gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Puntland Maxamed Cali Ciise Maxamed Ciiro bal marka ugu horeysa waxaan wax ka weydiin doonaa bal si guud sportiga Puntland iyo sida ay ugu soo diyaar garoobeen ciyaaraha maamul goboleedyada ee Muqdisho ka furmay oo haatan Muqdisho u joogaan ee ku soo dhaw gudoomiye bismillaahir rahmaanir rahiim waa dhawahay TV-ga VOS Muqdisho aad baad ugu mahadsantiin maanta maaragtay inaad fursad noo siisan inaad nagala qayb gashaan tababarkii oo lagu jiray stadium Muqdisho caasimadda Soomaaliya aad baan ugu faraxsanahay haddaan ka warramo diyaar garowgii xulka kubadda cagta Puntland naga ka xiriir ahaan kulli macallimiin baan soo sameynay macallimiintina team bay soo xuleen teamkii iyo macallimiintina diyaar garow fiican baa guud ahaan la soo wada sameeyay insha Allah waxaan rajaynaynaa hawlihiina loo ka bartay insha Allah inaanu shaqadooda qaban doono idinka rabbi aad baan ugu faraxsanahay imaatinka aanu nimi caasimadda Soomaaliya Muqdisho anoo raba inaan halkaan uga mahad celiyo saddexdii sano oo sanadkan ku jiro aanu ka qayb galinay ciyaaraha maamul goboleedyada Soomaaliya iyo gobolka Banaadir inaan ugu mahad celiyo halka kan degmadaanu mar walba ku soo degaynay iyo maamulkeeda gudoomiyaha degmada ugu horeeya mudane Maxamed Xasan iyo teamkiisa guud ahaan iyo bulshada degan degmada Shibis sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyaan sanad walba aad baan ugu faraxsanahay waxaan dareemaynaa magaaladayada inaan nimi xaafadayada inaan nimi gurigayga inaan nimi waan uga mahad celinaynaa mar walba sida wanaagsan oo ay maaragtay dhan walba noogala shaqeeyaan alxamdulillah annaguna waxa weeye dad ehla oo maaragtay isu yimi waxa la ciyaaraya waa kubaddaas insha Allah qoladii calafkeeda Ilaahay ka dhigo baa qaadi doonta idinka rabbi waan ku faraxsanahay dhinaca Puntland aan noqono waxaa socda ismayaasha garoomada oo meelo kala duwan Puntland ka socda waxaad ogtahay in garoonkii Mirawaare roogi la dhigay oo hadda ma garanaysaa xataa xulka Puntland ee hadda Muqdisho jooga ay tababarka ku soo sameeyeen bal waxaad iga warantaa garoomada kale oo dhiman oo qaybtood xitaa isku tashi lagu dhisayo sidee baad is leedahay waa lagu dhamayn karaa sideese hadda aad uga warqabtaan arrimaha dhismaha garoomada iyo horumarinta ciyaaraha Puntland haddaan ka warramo horumarka dhanka garoomada ee Puntland waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan uga mahad celiyo bulshooyinka isku tashiga iyo dawladda oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Diin ugu horeeyo kharash aad u badan ku bixiyay isagii dawladdiisa waana dawladdii ugu horeysay oo ku bixisay garoomada kubadda cagta iyo bahda dhalinyarada sportska garoomadeeda lacag aad u badan waan uga mahad celinaynaa madaxweynaha maadaama garoomada Puntland ay awal boor ahaayeen haddana labadii garoon ugu horeysay insha Allah midna uu la diyaariyay kii kalena asbuuca kan insha Allah la dhameystiri doono oo roog lagu bilaabayba waxaa jira garoomo kale oo iyaguna la rabo in la bilaabo insha Allah bishan haddii dhamaato wixii loo gaaro idanka rabbi sida garoonka Boosaaso kale iyo kii Qardho
idanka rabbi waxaan rajaynaynaa sidii isku tashigu ahaa dowlad iyo shacabba in lagaga wada qayb qaadan doono farxad weyn bayna u tahay Puntland iyo Soomaaliyaba in garoomada macmalka la wada sameeyo horumarkay ka mid tahay quruxday ka mid tahay dhiirigelinta bahda sportska ee dhalinyarada Soomaaliyeed iyo Puntland way ka mid tahay wax weyn bayna ka qaadanaysaa Ilaahay idankiis waana ku faraxsanahay ugu dambeyn laba kulan oo hore ayaa jiray oo ciyaaraha maalgoleedyada Puntland ay ka qayb gashay labadaba meelo fiican bay gaareen marna koobka waa qaadeen maxaad filaysaa sanadkan wallahi waxaan filaynaa sanadkan sidii hore aan u filaynay insha Allah inaanu wixii aan sameyn jiray iyo si ka badan ba inaanu u ciyaaro kalsooni badanna waa ku qabnaa macallimiinta iyo ciyaartoydaba idanka rabbi sportsku waa isdhexgal iyo caafimaad iyo horumar calafku waa meeshiisa laakiin kalsooni aad u weyn baan ku qabnaa inaan insha Allah meeshii aanu tagi jiray iyo meel ka sareysaba gaaro insha Allah gudoomiye maxamed ciro su'aashan kale waxay leedahay 9 gobol ay Puntland ka kooban tahay marka xulashada ciyaartoyda bal ka war iyaga xulashada ciyaartoyda horta sideedaba waa runta intay ka kooban tahay Puntland ciyaartoyda marba waxba lagu keenaa ma garatay ciyaartoydan kulay meelo kala duwan baa laga keenay oo Puntland kamid ah iyo Soomaaliya gudaheedaba maadaama ciyaartoydu ay tahay ciyaartoy Soomaaliyeed oo wax xadidaya jirin qabiilna laguma keenin qof jeclaysiina laguma keenin macallimiintu waxay ku soo xusheen aragtidooda waxa laga yaabaa inay boqolaal kumanaan baa joogta sports oo Puntland iyo Soomaaliyaba laakiin calafkoodu intaanu 22 kan ciyaartoy buu noqday marka Ilaahay idankiis fursadaha sportsku waa tiro badan maalin boqolaa soo gasha qolaa ka baxda hadda sanadadii hore kuwa aan ku jirin baa ku jira sanadkii dhaweyto kuwa aan ku jirin baa ku jiray kuwii ka horeeyay saasa la isu badbadalaya marka hadba intii calafkoodu noqdo 20 iyo 22 waa ka baaxad weyn yihiin ciyaartoyda Puntland marka intii rabbi calafkooda ka dhigay insha Allah bay noqotay marka kulay macallinku isaga selection ka soo sameystay annaguna waa ku qanacsanay idanka rabbi gudoomiye maxamed ciro aad buu mahadsan yahay waraysigaas kooban uu nasiiyay gudaha Stadium Muqdisho Xamar